sahal maaha tacliintu subaxii alla keenaba cilmi baa soo siyaadayo saameeyo koonke safarkii u dambeeyeyna sahal software ayaan idiin sidaayay bulshay hamoogaan marunmaanka ma ku haysay samaysan mareeg ama websayda dunyadu ay xogaha ka helaan ma u baahan tahay helidda casharo muuqaal tayo sare leh ka faa'idaysiga casharo PDF oo tiknoolajiyadu ku dheehan tahay sahal software hosting advertisement software development design web waa xarun ku xeeldheer samaynta websaydada casriga ah iyo suurtagelinta barashada casharada kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan hirgelinta barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharo muhiim ku ah sahal software waxa uu ku yaalaa magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool hamogaanin sahal software hosting advertisement and development software database and web. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waa mar kale iyo anigoo macalin Khalid Maxamed Maxamuud iyo ardadii iyo teamkii oo idinle dhammaantiin salaama. haddaba insha Allah waxaynu bilaabi doonaa course lagu magacaabo C programming language. sida shaashada idinka muuqataba course-kan ayaynu bilaabi doonaa insha Allah. saynu haddaba u bilowno maxaynu isticmaalaynaa marka ugu horeysa waxaynu isticmaalaynaa programkan lagu magacaabo C++. programkan lagu magacaabo C++ ayaynu isticmaali doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. bal haddaba ina mari wax ka bare course-ka lagu magacaabo C programming language. course-kan lagu magacaabo C programming language waxaynu u dhigan doonaa insha Allah module ayaynu u dhigan doonaa haddii Ilaahay idmo. module-ka koowaad waxaynu ku eegi doonaa basics ayaynu ku eegi doonaa halka aynu module-ka labaadna aynu ku eegi doono numbers. haddaba haddii aynu maanta cashirkeena koowaad aynu eegno marka ugu horeysa waa inaynu samayn karaynaa program lagu magacaabo ama program daabacaya hello printy hello world ama yacni ma garanaysaa program noocaasa waa inaynu daabici karnaa. saadaradeed marka ugu horeysa wuxuu u yiri bugu sidaad aragtaanba open C++. marka ugu horeysa waxaad soo furataa C++ soo furo ama C++ soo furo kadibna klik waxaad klik gareysaa the file tab amarka lagu magacaabo file tab klik gare dabeedna new project samee dabeedna waxa la choose the application waxaad doorataa application dooro saadaradeed choose then klik type dabeedna then code waxaad qortaa code-kaagii. haddaba code-ku waa inta halkan idinka muuqata bal haddaba aynu isku dayno inaynu sameeyno programkaas. resultiga soo baxaya ugu dambeyn resultiga soo baxayana waa hello world ayaa la yiri. saadaradeed si aynu isugu dayno bal marka ugu horeysa aynu tagno waxa lagu magacaabo programkeeni aynu tagno si aynu haddaba marka aynu taa u sameeyno waa inaynu marka ugu horeysa dalbanaa waxa lagu magacaabo file. dabeedna file marka tagno waxaan dalbanaynaa new dabeedna waxaan dalbanaynaa amarka lagu magacaabo project. dabeedna markaan dalbano amarka lagu magacaabo project waxaan dalbanaynaa console application. halkan aad aragtaan C++ tigta waan ka qaadanaa waxaan dalbanaynaa C project kadib waxaan oranaynaa okay. kadib markaan okay niraahno projectgeena ayaynu save garaynaynaa. tusaale ahaan aan ku save garayno kii koowaad aan ku save garayno wax lagu magacaabo kii koowaad kadib aan niraahno wax lagu magacaabo save. haddaba hadda waxaa laynoo bilaabayaa in programkeeni laynoo save gareeyo. saadaradeed si aynu haddaba u sameyno waxa loo yaqaano programkeeni daabacaya hello world ama waxaynu u baahannahay ayaynu haddaba waxaan sameynaynaa halkan waxaan ku qoranaynaa int main. waxaan ku qoranaynaa maxay int main ayaan ku qoranaynaa. kadib markaan int main ku qorano waxaan sameynaynaa waxa lagu magacaabo halkaas ayaynu sidaa samayn doonaa haddii Ilaahay idmo. kadib waxaan sameynaynaa intaa markaan sameyno waxaan furanaynaa bracket ayaan furanaynaa circle bracket ayaa la yiraahdaa. kadib intaa markaan sameyno waxaan sameynaa angle bracket baa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa angle bracket baa la yiraahdaa. kadib intaa markaan sameyno wax kale sameyn mayne halkan ayaynu waxaynu oranaynaa printf. kadib waxaan sameynaynaa waxa lagu magacaabo waxaan furanaynaa circle bracket ayaan furanaynaa. kadibna waxaan leenahay double quotation kadibna waxaan leenahay ku soo dhawow channelka okay. inta markaan sameyno waxaan oranaynaa halkan ayaan imanaynaa dabeedna waxaan sameynaynaa waxa lagu magacaabo calaamadan ayaan dalbanaynaa. kadib waxaan sameynaynaa waxa loo yaqaano calaamadaas ayaan dalbanaynaa. kadib waxaan oranaynaa new line noogu daabac
kadib markaan samayno intaa waxaan samaynaynaa waxa loo yaqaano markaas ayaynu waxaanu kusoo xidhaynaa semicolon kadib markaan semicolon kusoo xidhno hadda ayaynu haddaba waxaanu ku samaynaynaa waxa lagu magacaabo waa rangaraynayna si aan u rangarayno markaa waxaanu ku dhufanaynaa amarkan lagu magacaabo compile run waxaad kaloo ku dhufan kartaa compile iyo sidoo kale run labadaba waad dhihi kartaa compile run aan dhahno kadib waa safgaraynaa waxaan odhanaa kii koowaad kadib intaa markaas samayno waxaan odhanaynaa save haddayna la fiiri markaa maxaa soo bixi doonaa waa inay soo baxdaas kusoo dhawow channelka dabcan sidaa aragtaan halkaa waxaa kasoo baxay kusoo dhawow channelka intaan xisatan oo kale ah ku kulmi doono dhammaantiin waxaan idinku dhaafayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh